الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس صدورك العلانية في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه وأمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إخوتي الأعزاء موضوعنا عاو إن شاء الله تعالى وحنكو إيلنا القيامة وأهوالها مالك وين أن نقدم بأيه ويوم القيامة يدباتدي سي أهواشي سواحد نحدي سرعيه أيان إن شاء الله تعالى سوق هذا يوم القيامة ومالك أوقع بسيطة بدن ونقدم بأيه ونسوق يوه maalinka intaaynu dhimanno haddana nala soo bixin doono ilaahayna la hor istaajin doono wey subxaanahu wa tacaala acmaasheennii oo dhan nala weydiin doono wixii wanaagsanaa iyo wixii xumaay oo dhan baa nala su-aalayaa waa nala xisaabinayaa waa maalinka ugu cabsida badan waa maalin aad u weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan buu qur-aanka ku soo celcelinayaa oo ilaahay noogu sheegay maalinka asaga axwaashiisa wey iyo inuu yahay maalin aad u weyn oo aad u dhibaato badan wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaasu dadow ittaquu rabbakum wa rabbigiin ka baqa. waxa keliya oo lagu badbaadaya waa cabsida ilaahay ka baqa awaamirtiisa qaato daacada ku dadaala wuxuu idinka reebayna ka hara
inna zalzalata saaca saacadda qiyaamo dhiciddeeda iyo lulashadeedu shay-un cadiim shay weyn weeya ilaahay yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat waa maalinka aad arkayso qof kastaa lala khidaabaya qof kastoo khidaab ka suuroobo maalinka aad arkayso weeye tadhalu kullu murdicatin cama ardacat tii wax nuujinaysay baa ilmihii ay nuujinaysay bay hilmaamaysa watadacu kullu daati xamlin xamlahaa tii uurka lahaydna uurkii bay dejinaysaa iyadoon dareenkii foosha iyo xanuunkii garanin ayay ilmihii dejinaysaa wa tara nnaasa sukaara dadkii baad arkaysaa inay yihiin kuwo waalwaalan oo kale indhahooda ayaa taagan kor u taagan qofku ma garanayo waxa inta iyo inta ka jiro waa maalinka iyadoo qaaqaawan laysi soo bixinayo dadkuna ayna ogeyn inay qaawan yihiin ay dhar qabaan ma kala ogo wax waalan oo kale camal bay dadku la mid yihiin wa tara nnaasa sukaara wamaa hum bisukaara xaqiiqa ahaanna dadku ma waalno walaakina cadaab allaahi shadiid cadaabka ilaahay baa aada u daran cadaabka ilaahay bay arkeen dhabti bay arkeen xaqiiqadii bay gaadheen jahannamo ayaa hortooda ka muuqata oo ay arkayaan wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka markii qiyaamaha la soo istaajiyo wuxuu fiirinayaa dhinaciisa midige falaa yaraa ilaa maa qadama camalkiisi unbaa ka muuqdo dhinaca bidixuu haddana eegayaa falaa yaraa ilaa maa qadama dhinaca bidix hadduu eego fiiriyana camalkiisii waxaan haynoo muuqdo ma jiro wayanduru tilqaa'a wajhi hortiisuu fiirinayaa falaa yaraa ila naara tilqaa'a wajhi hortiisana jahannamaa ka muuqato oo 70,000 oo hoggaan lagu hayo hoggaankii la arkaba 70,000 malag baa haysa 70,000 oo malag markaasay weliba soo fakanaysaa dadku markaasaad u malaynaysaa wax waalan wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allaahi shadiid dadku ma waalno laakiin cadaabka ilaahay baa maalinkaa aada u daran ilaahay cadamadiisii iyo quwadiisii buu maalinkaa muujinayaa malaa'igtii baa la safayaa ilaa samaawaadka korkoodaa la safayaa ardadii baa la bedelayaa samadii baa la bedelayaa wax walbaa isbedelayo markaasaa malaa'igtii baa saa loogu wareejinayaa dadka loogu xilqaynayaa jahannamo ayaa hortooda lasoo istaajinayaa oo 70,000 oo hoggaan lagu hayo qof la arka camalkiisii buu arkayaa hadduu midig fiiriyo hadduu bidix fiiriyo cid kale oo maalinka wax u taraysana ma jiro qofuu u laamayo ma jiro markaasuu qofku maalinkaasoo kale inuu waalan yahay baad u malaynaysa yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih waa maalinka qofku uu ka cararayo walaalkiibuu ka cararayaa hooyadiibuu ka cararayaa xaaskiisiibuu ka cararayaa ilmihiisiibuu ka cararayaa aabbihii iyo hooyadiibuu ka cararayaa cid kasta oo adduunyada markuu joogay uu ku tiirsanaa oo uu dhimanayay oo aad u jeclaa qiyaamaha markii la gaaro ka cararaya la kala bari noqonayaa markaasaa la kala cararaya muxuu u cararayaa in wax lagu sheegto ka yaaban yahay in wax lagu sheegto wax loo soo raacda ayuu ka yaaban yahay markaasuu cararaya yowma yabcahuhum allahu jamiican waa maalinka dadka dhammaantood ilaahay soo saarayo fayunabbi'uhum bimaa camiluu waxay sameeyeen baa loo warramayaa loo sheegayaa axsaahu llah camalkoodii oo dhan ilaahay baa koobay wanasuuhu ayaguna way hilmaameen baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay baa waxba hilmaamaynin dadkii oo dhan baa la keenayaa min ladun aadam ilaa aakhiri zamanka aakhirkiisa qofkii ugu dambeeyey oo dhashay ilaa aadam nabiyullaahi aadam laga soo bilaabo ayaa la keenayaa rag iyo dumarba waa la keenayaa
shuyuukh iyo shabaabba waa la keenayaa, mu'min iyo munaafiqba waa la keenayaa, saalix iyo daalixba waa la keenayaa, qofkii xumaa iyo qofkii wanaagsanaaba waa la keenayaa. halkaasaa la isugu keenayaa dadka. yowma yabcahuhum allahu jamiican, waa maalinka ilaahay uu soo saaraya dadka dhammaantood baa ilaahay soo saaraya. fayunabbi'uhum, ilaahay wuxuu u warramayaa, u sheegayaa bimaa camiluu, waxay sameeyeen oo camal faleen baa loo sheegayaa. axsaahu llah, ilaahay baa koobay, ilaahay baan waxba ka fakanayn, acmaasheenna waxba kama fakanaysa ilaahay. wanasuuh, ayagu way hilmaameen. qof la arka camalkuu samaynayay, waxa weligii uu samaynaya habeen iyo maalin camalkuu samaynaya waxba kama ogo. laakiin ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maalinka qofka uu uu qaangaadhay ee takaaliifta waajibaadka la saaray iyo camalkiisii uu bilaabay ilaa maalinkuu dhintay, wuxuu qoray oo dhan uu dhigaayo o dhan waa maxfuud, meel bay ku xifdisan yihiin, kitaab bay ku qoran yihiin. malaa'ig mukarramiin ah oo ayagu waxba aan dulminaynin oo aan been sheegaynin oo waxba ka fakanaynin baa ilaahay u dhiibay. markaasay qorayaan, asagaa lagu qancinayaa, ilaahayna waxba kama fakadaan. wax ka fakanaya ilaahay ma jira. acmaasheenoo dhan, axwaasheenoo dhan buu ogyahay, camalkeennoo dhan buu ogyahay, waxa quluubteenna ku jiro ogyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. caliimun bidaati suduur wey, qalbiga waxaan ku hayno, laabta waxaan ku hayno ayuu ilaahay ogyahay. waxaan ku hadlayna iyo waxaan samaynayna iska badha. markaasaa loo warramaya. iqra' kitaabak baa la odhanayaa qofka, kitaabkaaga akhriso. kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba, kitaabkaagan ayaa xisaabkuugu filane aqri baa la leeyahay kitaabkaagan. mana inkiri karo. hadduu isku dayo inuu inkiro